soo dhawaada saaxiibayaal markale isku soo noqod wanaagsan maanta waxa idin wada filim aad u xiiso badan inta muuqaalkeeni guud ogaan sidii caadiga ah waxaan ku xasuusinaa muuqaalkana gareeso channelka subscribe coin aad iyo aad ba u maasan tahay filimku wuxuu ku bilaabanayaa wiil yar Luke oo carray kadib markuu wax sawirka farshaxanka ah waxaana daba socdo wax ma fidoonaysa inay ka dhacaan sawirkaasi Luke si fudud ugu fogaad maadaama uu saarnaa mooto wuxuuna raacay tareen markuu uu fariistay gudaha tareenka Luke wuxuu saaxday waqti yar kadib wuxuuna koriyo in hadda laga qoonsado mid kamid ah khubarada waaweyn qadiimiga ah maadaama uu helo waji dahabi ah indhiisa ku furmilayska wajigaasi wuxuuna arkay gabar lagu magacaabo Asma oo fadhida kursiga hortiisa taasoo ka dalbatay sawirku waxay nugu xajabtay duusan sawirka siin marka halkan jooga way ku garaaci doonaan Luke yasin ku hanjo moonkiis ruuxiyan ee halkan jooga ay saaxiibadiis oo hadii aad ku dayda inay wax yeeshaan ay keenay ciqaabi doona laakiin Asma way ogaatay inuu been sheegayo sidaa darteed waxay midida ku fiiqday Luke rag ay wadataan waxay bilaabeen in dagaal la kalan Luke gabadhii waxay ku dhacday sawirka Luke ragii waxay qabteen Luke balse isigoo dagaalamay iska sii daayay wuxuuna sidoo uu noqday gabadhii wuxuuna ka soo qaatay sawirka markale wuxuuna ka boodo tareenka kuna fuulo dusha sare waqtigaas wuxuu ka tagay tareenka si ka sii joogo meel sare laasan iyadoo dadkii ay sii dib u socdaan hadaba filimku wuxuu u wareegaya magaalo kalkaas ay joogto walaasha Luke oo dacwo ka sanakeeda si inuu wareegto ilaalinta wiilkooda markii aragta shaqadeedu mataa waxay silmi filaan warta walaalkeedu Luke halkaas jooga kaasoo sanado badan saarkin waxayna dareemaysaa murugo waxayna u sheegtaa Luke xaaladeeda inay wiil dhashay haatan kala tagay ninkeeda laakiin intii hadlays Luke wuxuu xaday sawirka kale wuxuuna bilaabay inuu carro waxayna ku ogaatay inuu yahay mid waxaad inuu iimaan walaalnimo maadaama haatan madax ka tahay madxafka tooyadaasi waxay horsoodi kartaa dhibaato weyn sidaa darteedii waxay raacday Luke si u joojisay laarimku bilaamay booliska sidoo u daba kaleen Luke markaas ayaa Luke walaashiisa u sheegtay hadii ay la sii socoto uu dib ugu celinay sawirkaasi darteedii kuraas ugu fadhiistay baabuurkiisa Luke si dhaqsi baabuurku ugu jirsiyay gaari kale taraaka si ugu dhunta waxaan halkaas ku sugnaa khubaro kale qadiimi ku takhasustay waxayna hubiyeen sawirka waxayna yiraahdaan waa beenawo ka walaashiisa wayn xal sida darteedii Luke ayaa mir beelay maalintii xitaa markay soo toostay waxay fadhiday hore ee madxafka gacantana waxay ku haysaa sawirkood dib ugu dhigtay halkii laga qaaday laakiin waxa la arkay boolis badan halkaas misay Luke u qabtaan waxayna bilaabeen su'aal weydiinta walaasha Luke si uu hela laakiin waxay tiradii aan garanay halka uu joog aniga ayaa la joogi lahaa waxayna ku dareysaa in Luke la qabtaysan hadda faa'iido lahayn maxaa yeelay sawirka waa la soo celiyay laakiin si dar shaqadii ayaa la misay waxayna aad ugu niyadjabtay markii ninkeedii hor maqal arrimahaas wuxuu si ul ka cudiyay inuu kulanto wiilkeeda waxayna faantin kiiska ninkeeda uu rooyay taasoo murugo ku reebtay markaas ay u tagtay ciwaanka Luke uu rabsay uu la kulanto halkaasna waxay kula kulanto khubaro kale ganacsada la socota Luke waxayna ogaatay in lagu jiro hawl balaaran wuxuuna daynayo la biixirada cirmiga dheer oo ganacsadaas uu raadinay maadaama biyaha ay leeyihiin awood mucjiso ah waxayna bogsiin karaan cudur kasta dhab ahaantii ganacsada wuxuu lahaa cudurka kansarka markaas walaashiisii ku tiraabixii uu xaarkoon istiijay wuxuuna badankooda wuxuuna garan dadka loo mar biixiraadka cimriga dheer wuxuu u tagay suu helo laakiin ma uusan helin waxayna ka dhigantay inaysan jirin sheekooyin kaliya laakiin Luke uu diidaasna waxay tustaa cilmi baaris uu sameeyay wuxuuna u sheegay in kooxda yar Protestants oo baad ay qarinayeen jidka taasi ay tahay sababtii aabahooda uusan u helin Luke wuxuu u sheegay in qaar kamid ah kooxdaasi ay doonayaan adduunka la wareegaan si ay dadku u faa'iideystaan saa darteed waxay calaamadaha ku qoriyeen lix sawir oo caan wuxuuna u sheegay in lix sawir calaamadooyinkooda laakiin mid kale kama qawlaashiisa u sheegay in sawirka madxafka yaal uu been abuur yahay sawirka dhabta waxa la dagay markabka sanadkii hore ay ku cudurdaartay inay caawiso maadaama booliska raadiyo ku hayaan Luke maxay tirma aqbali karo farxadeeda kale waa wiilkayga darteeda laakiin ganacsiga oo balaqaan hadii ay caawiso ay heli doonto xaq ilaalinta wiilkeeda ugu dambeyntii way ogolaatay waxayna raaceen markab si u tagaan jasiiradda halkaas oo markabkii loo dagay sawirkii joodkooda ugu waxay naga soo saaray markabka hoosta badda ku jira Luke walaashiisa waxay galeen gudaha markabka si ay u helaan sawirka dibna dadaal dheer ugu dambeyntii waxay sanduuqa sawirkaasi ku jiray koorantaysan ka bixi meesha Asma kooxdeeda iyo halkaasi timid kooxdii Asma waxay bilaabeen weer halkaas oo walaasha Luke ay weerartay cid ay dadkaasi Luke wuxuu bilaabay dagaal Asma waxay qabatay walaashiisii waxayna ugu hojjatay inay dili doonto balse Luke wuxuu yiri anuga inaan dili doono sababta waxaad rabtaa sawirka kaliya markii Asma isqoyli walaasha Luke silm filan ku qabatay Asma waxayna ku tuurtay banooniyaashii muyna ee markab Luke qaadaya qaxay markabkii wuxuu bilaabay inuu dib u dago kaay dadkii bilaabay inay dabaashaan markale si u badbaadaan waqtigan walaasha Luke aad bay u xanaaqday sababtoo Luke wuxuu doorbiday inuu badbaadiyo sawirka halkuu ka badbaadin lahaa iyada dhowr maalmo kadib walaashiisii waxay war fiican oo sheegay in ninkeedii uu helay shaqo
cusub taasoo keentay inuu guur wadan kale wiilkeeda sidaas ugu noqon doona gacantayada haddaba khubaradii qadiimiga waxay dhameystireen dhammaan sawiradii ay rabeen waxayna isku dayeen inay ka helaan tilmaamaha lagu ogaado meesha ay taalo biyo-xireedka cirmiga dheer laakiin ma aysan sababta wax ma noqonayo calaamadihii ma jirto meel cad oo tilmaamahaasi ujeedada markaa walaashiisii tir sawiradan dhammaan waxay jireen ku 600 sano haddii la isku dar irada waxay sameynayaan magaca boqor gaar ah waxaan la sheegay in kitaabkiisii biibalkiisa laga heli karo biyo-xireedka waarintaysan ka bixin kooxdii burcadka ee filimka hore ugu dabatid ay markale bilaabay inay raacaan waxaana hogaaminaya sarkaal doonaya inuu qabto dhammaan Luke iyo hal sarkaalkii waa inay rataa sawiradaasi haddii aad doonayso dhammaan sawiradaasi qaado qiimo weyn leh balse waa inaad naga danaysaa dhammaan kooxda sarkaalkii burcadii waxay bilaabeen dagaalan sababta labadu waxay rabaan sawirada Luke kooxdiisii waxay ka faa'iideysteen fursadaasi way baxsadeen dhowr saacadood kadib waxaana Luke kooxdiisii ku sugan diyaaradooda Luke markale wuxuuna bilaabay inuu ku riisigo cabi biyo-xireedka cirmiga dheer wuxuuna arkay walaashiisii walaalkeedu kubiya intuu cabay biyahaasi kaas urgaxa wuxuuna daadiyaa biyo kadib indhihiisa way furmeen wuxuuna arkay walaashiisu afadhida hortiisa iyadoo la weli riyooyin badan baa ka hadasha markii dambe waxay kala maktabad ay doonayeen inay ka helaan kitaabkii boqorka qaar kamid ah saaxiibada Luke waxay bilaabeen in qran kitaabkaasi qoto dheer laakiin Asma markale timisi u joojisay Luke maadaama Asma dhibahantay ka tasna kooxda Bartosit oo baad Asma waxay doonaysaa inuu joojiyo Luke si ay u faafin arrintaasi dagaal ay halkaas ka dhaxmar Luke Asma waxa xabad ku fiiqdo Luke intii lagu jir dagaalkaasi laakiin Luke wuxuu xir ku xirlugiisii wuxuuna sidoo ugu booday dabaqa sare wuxuuna saaxiibadiisii ku yiri inaan ka baxsan halka anaga la baxsan kitaabka saaxiibadiisii waxay buufiyaan qaladii kitaabka dhammaan kooxdii way baxsadeen habeenkii Luke kooxdiisii waxay kitaabkii akhriyaan laba jeer laakiin wili tilmaamo kamaysan helin markaa walaashiisii dib u eegtay arrinta waxay tiri calaamadaha laga helo sawirada maysan tilmaamo toos waa muusiko wiilkooda muusikista ayaa sidoo kale fahmay arrintaasi wuxuu ka helay muusig gaar oo lagu xusay todobada mucjis ee adduunka mucjisada toddobaad waxay barmedis amiirada Masar waxayna fahmeen in biyo-xireedka cirmiga dheer uu ku dhex qarsoon yahay barmediska dhammaantoodii waxay markale raaceen diyaaradda ganacsada si ay u safraan Masar Luke ayaa markale reego isigoo arkay inuu wajigii dahabka ahaa daashiisa hortiisa fadhiid markaas waxay tiri ninka ganacsada kalsooniga kuma qafiir wuxuu shaqo u dankeygii hore Luke ku jahawlun wuxuu rabaa inuu badbaado lacag badan wuu hayaa aan diyaaradda saaro himiladeena markaas ayaa muuqaalka beddelaya waxaa nala tusay Asma oo xibinta kooxda Bartosit of the Bad waxayna kulanto hogaamiyahooda iyadoo murug ku jirta Luke kooxdiisa waxay haatan gaareen Barmediska hogaamiye wuxuu ruwaadagtay inuu joojiyo kuwaasi maadaama aysan cidna gaarin halkaasi hore waana garanaysaa waxa u baahantay inaad sameyso ka ayuu sii furiyay la yaab leh Luke hadda wuxuu u sheegay dadka sirta ku jirta gudaha Barmediska waxayna walaashiisii ka tir wax kasta ka yeeshaan halkaasi ay idin dhicina dib u qaadataan bixi wuxuu leeyahay wajig dahab gudaha Barmediska taasoo horseeday sumcad weyn laakiin uu ku tagay wajigaasi dhammaan waxay ku raaceen walaashu Luke waxaana la tusay markaasi ay gaareen Barmediska xilligii qorraxda soo baxayso ganacsiga sidoo kale yar dagaalin badan si u joojiyay cid daba socota Luke wuxuu gudaha u gol qorsir oo ku dhex qarsoon Barmediska waxa yaala daramo iyo dhaqaaqaynin Luke wuxuu soo jeeday in qorxiso looga saar laakiin walaashiisii ay joojisay waxayna tiri masaaridii hore waxay yahay injineer waaweyn waa in farsamo fudud ku sameeyay si wax looga saaro wiilkeeda halkaas joogay si feejiga wax walba arkayay waxaana meesha daroomi qaar u eeg cod bixiyaal markaas uu bilaabay inuu tum daroomiska waxayna bilaabay in dhaqan jiraan jiroon baa meesha ka soo maqday iyo daroomka si tartiib kor u kacaya markaas walaashu Luke in garaac daroomkiisa si lagu wareejisay waxaana hoosta ka soo baxay qol eeg wiish halkaas oo ganacsiga dhammaan qoyska Luke hoos ugu dageen gudda barnaamijka booliska kooxda Asma halkaas yimid waxayna bilaabeen dagaal ay la galaan ragga ganacsadaha kooxda Asma booliska gaashaday waxayna dilaan dhammaan ragga ganacsadaha kadib waxay isla gartay in la galo barnaamijka si loo raadiyo kooxda kale Luke kooxdiisii waxay sii dhaxgaleen gudaha barnaamijka waxayna heleen markii qorsan si u gudbina qaybaha hoose waxayna gaareen meel si cad u arkeen biyo-xireedka cirmiga dheer markay gacanta saareen dhagax dhisan jiraan jirooyin baa ka soo muuqday waxayna hoos ugu degay jiraan jirooyinkaasi waxaana ka muuqata farxad markay arkeen biyahaasi walaashu Luke ay tiri halkan biyo ay raadinayeen biyaha aad u yaraayeen walaasheed waxay tiri biyahaasi waa nimco balse way noqon karaan masiibo weyn waa in iska ogaataa markaad cabto ganacsiga wuxuu ku yiri Luke adiga caab Luke wuxuu ku jira shaqadeeda waxayna ku kadibna go'aanka adiga leh laakiin ganacsiga yaringa ku aamina shaqadeeda meesha ku eg tahay kaasi walaashu Luke faatin ganacsiga usan jirin isiga uu qirtaha wax cudur ay ma hayo waxaan rabaa inaan helo biyo-xireedka cirmiga dheer waxaana maqlin biyahaasi ay keenay cimri dheer iyo dhalinyaro weligeeda balse hadalkaadii cabsiga sida darteed Luke caab marka hore wuxuu ugu jawaab Luke caab hadii kale waxaan dili doonaa walaashaadi wiilkeeda Luke isiga doonin inuu dhaqaaqay biyaha balse dhibic dhiig ka soo qabatay dhaabac Luke uu qabay ku dhacday
biyaha taasoo sabab ganacsada oo tagto Luko markii dhibicdaasi dhiigga biyaha ku dhaceen biyaha ayaa bilaabay inay wareegaan waxayna si la yaab leh Luko ku doobantay korna u qaaday biyahaas isku aruuray waxayna gacanta u kala Luko kaartoosan biyahaas waxay tusay aragtidii walaashiisa wiilkooda gubana dhiman haduu cabo markaas uu ka shalaayay wuxuuna go'aansaday inuu san cabin biyo ayaa galtay mar koronto ee jirkiisa taasoo in imtixaanka ku gudbay biyo waxay siiyeen wad gaar ah dhaawacyadiisa si dabiici ugu bogsooday markuu Luko soo noqday ganacsiga wuu faraxay wuxuuna wadi maxaad inuu cabo biyaha Luko wuxuu biyahaas waadi ku gaar ah ganacsigaas dhaawac dhiigkiisa ku daaday biyaha markay biyo si limad u qaadeen kor Luko markay imtixaankii ku sameeyeen biyo wuxuu ogaateen ganacsiga kaliis jeclaaday biyahaas sidee wax siin wax bay qaadayaan biyahaas waxay goobi u dilaan dadku jecel yahay qofka cabaya laakiin ganacsiga is jeclaaday sida darteedii waqtigaas ismi sarkaalkii booliska halkaasi markay arkin ganacsiga cabay biyahaas waxay sidii u ordisay u xirtay ceelkaasi iyadoo isticmaalaysa filosofi markaas kambali weyn bilaabay inuu dhawaaqo meesha dhan way bilaabatay inay xirato dhammaan dadkii way ordeen si u baxsadaan ganacsiga wuxuu ku xirmay khatar ah Luko ku rabo wuxuuna arkin ganacsiga uu soo dhacay soo dhinto balse Luko naftiisa khatar gal oo badbaadiyay ugu dambeyn wada bixin dhammaan wadooyinkii way xirmeen Luko wuxuu raagelinka bixi khatar u gal walaashiisa wiilkeeda asan waxay tiraahdaa wax dhibaato ah gal markale si aan ku daba socon dhamaantooda waxay bilaabeen safar cilin Luko uu degnaa wajigiisii wuxuuna maanta faham sababta abahooda dadkuusan ugu shansiraa weyn uu helay halkaas uu ku dhamaanaya maanta filimkeeni aad iyo aad baa u maasan tahay diyaalkan la soo gaartay muuqaalka loo garano sheekaray baleekan farasi ku soo gaaraa muuqaalaad xiiso badan aad iyo aad baa u maasan tahay daawade